Simaha Duqa Dagmada Buuloburte Abshir Maxamed Haray Abshir Afrika ayaa shir jaraa'id uu qabtay kaga hadlay arrimo badan oo ku saabsan degmada Buuloburte iyo dhismaha golaha deegaanka waxa uuna bulshada ku dhaqan degmada Buuloburte ka codsaday in ay ka faa'iideystaan dhismaha golaha deegaanka haddii la doonayo in degmada Buuloburte ay dhismato isla markaana ay horumar la taaban kara ay gaarto. sidaan wada ogsoonahay degmada Buuloburte waxa ku nool ummad fara badan mar walbana waxay u taagan yihiin horumarka degmada Buuloburte laakiin waxa jiro dad ka soo hor jeesto horumarka degmadaasi dadkaasi ayaan waxa rabaa in aan wax yar baraarujiyo ama wax u sheego iskuma diidano degmada Buuloburte inay xiran tahay laakiin macnaheeda ma ahan waxba ma qabsi kartid degmada Buuloburte lama xirno Soomaali oo idil ayay ka jirtaa dhibaatadaani ma waxa leenahay degmadii ayaa naga xiranay ma iska fadhiisana haddii aad sidaasi aaminsan tahay haddaba ani ma aaminsan sidaasi waxaan ogsoonahay waxa adiga aad doonaysid tooni maayi in aan rabitaankaaga aan ku shaqeeyo waxa tahay ninkii shalay ka soo hor istaagsanay dhismaha Hirshabeelle war adiga shay kasta oo cusub haddii aad ka soo hor istaagto horumarka degmada Buuloburte cid loo aabiyeelayo ma jirto war adiga haddii aad degmada Buuloburte xaaladeeda aad ka sheekayso oo waliba adigoo meel kala joogo xaaladda degmada Buuloburte oo ka sheekayso haddaba anigoo degmada Buuloburte aan ku dhashteen ku barbaaray oo ilaa haddana waxbarashadiisa aan ahaayo oo haddii aligu diidin maamulka degmada aan ka tirsanahay haddii adiga ay dhehaysid aniga wax ku sheega xaqiiqdii waa ayaan taro sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in maamul la soo magacaabay ka wanaagsan yahay in la helo maamul bulshada ka yimaaday oo ay doorteen ayaga si looga baaqsado ruux la soo magacaabay war adiga dooro nin degmada Buuloburte xukumi karo dhibaatada ay leedahay warqadani waan dareemi karaa aniga qof kastan waa dareemi karaa haddii adiga aad jeceshahay qof warqad wado qofku toon ha ahaadee haddii inuu ku xukumaa doonaysid haddaba aniga ma doonayo saas waxaan rabaa maadaama aan ahay Simaha Duqa degmada Buuloburte in aan odayaasha degmada Buuloburte aan la sheer karay doono adiga waxaad dhahaysaa degmada Buuloburte council waa loo baahan yahay haddana waxaad dhahaysaa degmada Buuloburte council ma baahan waa laba eray oo isku dhaweyn waa rabaa laakiin meesha kuma jirto waa rabaa mas'uuliyiinta ka soo jeeda degmada Buuloburte waxaan u sheegayaa aan fariin u farayaa degmada cid ka leh ma lahan haddii wadada xiran tahayna adiga ay ku xiran tahay inaad u umaadid degmada Buuloburte wadooyinka iyo wax dhan aad kala shaqeysidna waajib aad ku saaran waa laakiin ma ahan ina meeshan waa hotelkana jooga degmada Buuloburtane afka ina wax ka sheego ma ahan degmada cid ka xigta ma lahan imaaw Duqa degmada ayaa madaxda Hirshabeelle ugu sarreeyay ugu baaqay in ay dardargeliyaan howlaha dhismaha golaha deegaanka waxaan kaloo halkan fariin ugu farayaa madaxweynaha Hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo qof kasta oo daneynayso horumarka Hirshabeelle waxaan leeyahay madaxweyne haddii aad rabtid xukuumadda Hirshabeelle inay kor u baxdo waa in shacabkaaga si fiican ula shaqeysaa oo mar walbana waxay jecel yihiin oo sameeysaa laakiin haddii aad ku mashquusho qabiil hebel raali gelina ama qabiilkaas raali gelina weliga horumar ma gaaraysiin aniga qabiil waa naga dhamaatay haddana dhalinyaradii Soomaali haddana dhalinyaradii degmooyinka xaqiiqdii yaani qabiil dhibaato weyn ayay noqotay hatta shaqooyinka xitaa qabiil ayaan lagu xijay waxaan kaloo fariin u farayaa dadka mar walba caadeystay in dadweynaha ama dawladdiisa ka hor imaanayo war dawladda waa laga kambadaa dadweynaha waa laga sheexaa laakiin mar kasto haddaad aad tiraahdo saas ma ahan waa arin aad iyo aad laga sheexo ugu dambeyn waxa Simaha Duqa degmada Abshir Afrika sheegay inuu ka shaqeynayo dhismaha golaha deegaanka waxaan balan qaadi doonaa inta aan Simaha Duqa degmada Buuloburte aan ahay in aan horumarka Buuloburte aan ka shaqeyn doono war degmada Buuloburte
uma baahna tood in la keliyo ee waxay u baahan tahay dhismo walaalo wax dhiso naga dhaaf anaga herto warqadan naga daba socda anaga herto haddii aad Buuloburte ka naxaysidna walaalo Buuloburte imaab cid ka xigta ma lahane war anaa kamid ah wax Buuloburte jooga dhibaatada ee leedahay faa'iido ee leedahay maanta degmada Buuloburte aniga ayaa ila wadi karaa يعني degmada Buuloburte waxa laga rabo iyo waxana laga rabin aniga ayaa ila wadi karaa laakiin ma ahni ma kala joog in laga wareysto ama laga dhageystaba waxaan firiin u dirayaa cid kasto degmada Buuloburte horumarkeeda rabto degmada Buuloburte aan ka wada shaqeyno horumarka degmada Buuloburte Absalaam Maxamed Ibrahim Somali News Buuloburte